hay nabada kuna helay dhamaysno mana jira wax iga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودyaasheeda qiimaha ee qaayalow ku soo dhawaada shabakada wararka ee Sela 24 waxaan idin haynaa faalla gaar oo aan ku eegano Somaliland maxay uga dhigan tahay baasaboorkeeda oo wadamada caalamka lagu goosho iyo fiisayaasha caalamka oo la saaraa arrintani ma tahay aqoonsi buuxa oo Somaliland haysato si aanay ogeyn barnaamijkan waxay la socodsiinayaan anigoo ah Cabdisaaq Axmed Jaamac waxaan la wada soconaa in waftiga ugu dambeeyay madaxweyne Muuse Biixi uu hogaaminayay Mareykanka iminka ku sugan ay siteen baasaboorkii diblomaasiga ahaa ee Somaliland waxaan kaloo ka warhaynaa 12 sanadood ee ugu dambeeyay in ardayda Somaliland ee dibadaha ku maqani ay wax ku soo baranayeen baasaboorka Somaliland kaasoo u sahlayay socdaalkooda iyo wadamada ay joogaan wadamada Geeska Afrika qayb ka mid ah Pakistan, Hindiya, Emirates UK iyo wadamo kale oo Europe ka tirsan intaba waxa lagu tagay baasaboorka Somaliland haddaba dal markii la leeyahay waa la aqoonsaday jiritaankiisa waxa ka ah baasaboorka iyo calanka Somaliland muddooyinkii ugu dambeeyay maadaama ay haysatay calan dal kasta oo ku soo dhaweynayay baasaboor ay ku socdaasho iyo lacag ay ka dhex isticmaasho dalkeeda gudaheeda waa maxay waxay uga baahan tahay aqoonsi kale mise aqoonsi aan dadku ogeyn baa ka maqan dowladaha Itoobiya iyo Ingiriiska ayaa waxay ahaayeen kuwa ugu horeeyay fiisayaasha baasaboorka Somaliland saara taasina waa astaan kale oo muujinaysa in 12 sanadood ugu dambeeyay dadku ay ku socdaalayeen baasaboorka Somaliland kuna tagayeen caalamka inkastoo agaasimaha guud ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland Master Bile uu sheegay in baasaboorka Somaliland ay qaateen diblomaasiyiintii madaxweynaha raacay laakiin waxa suuragal ah maadaama in badan uu dalka ka maqnaa inaan ogeyn cid ku bixi jirtay iyo meelaha ay ku tagi jireen baasaboorku waa astaan dowladnimada lagu ixtiraamo calankuna waa sidaas oo kale haddaba Somaliland maadaama iyadu is ictiraaftay documentiskeedii iyo calankeediina caalamku ictiraafsan yahay ictiraafka Somaliland ma waxay u taqaanaa inay UN ka fadhiisato African Union ka mid noqoto ururada caalamka oo laga mid noqdaa ma aha aqoonsi mana bixiyaan shahaadada aqoonsiga laakiin waa meel maslaxad loo galo maslaxadna loogu jiro wadamo badan oo aqoonsiga haysta adduunka ayaa jira ururadana aan ka mid ahayn xeerarkoodana aan saxiixin Somaliland waxay u baahan tahay inay bedesho fikradda ah maxaa u dhaxaya aqoonsi iyo maslaxadu waa wax uu dal kale leeyahay aqoonsiguna waa waxa lagu ixtiraamo dokumentiga caalamka dowlad kastaana dowladda ay maslaxad kale leedahay bay dokumentigeeda ixtiraamtaa sidaa iyo nabadgelyo aniga ah Cabdisaaq Axmed Jaamac idinkaga tagay nabadgelyo